diidnay annagu dooni mayno waa diidnay dollarka qaadan mayno diidnay ma rabno dooni mayno ma doonayno ma rabno oo dooni mayno qaadanna mayno. salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu asxaabta sharafta leh waa mar kale iyo muuqaal cusub bartan aad iga dhehanaysaan waa bartaan ku kulmi jirnay waa lakaa midhiya baro aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalayaal. alla ayaa mahad iska leh, alle ayaan u mahad celinayaa malaayiin jeer. adduunyada muggeed iyo in kasii mug weynba mahad allay u sugnaatay. ilaahow adiga xaqsooro ah, ilaahow adaa ummadda badbaadiya, dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyaba ilaahow badbaadi. wax badan baan hadal ku maqli jiray, wax badan baan dheg ku maqli jiray, noloshayda ma arag sheekan ku maqlay. wax badan oo dad ka sheekeeyaan baan arkay in la yiraahdo hebel waa la iibsaday, hebel intaasoo lacagaa loo shubay, hebel lacag baa la siiyey, hebel waxaa ka hadlinayaa waa lacag, hebel wuxuu qaatay lacag, hebel wuxuu dadka ku gumaadayaa lacag. waa maqli jiray, waa laga sheekayn jiray, ima soo marin. maanta ka horna dhagahaygu ma maqal oo ma arag oo layguma oran, laakiin waa lay soo bareeray. ilaaha wadaa weyn, anigu weligay cid ma layn, firiya faracu malihi aabbahay cid ma layn, lama maqal awowahayoo cid laayay ama af ku laayay ama adin ku laayay ama xabad ku toogtay la igama sheekayn, mana maqlin. ilaahow maantana afkayga ummad Soomaaliyeed inaan isugu diro oo ummad Soomaaliyeed lagu laayo oo inta aniga lacag lay siiyo aan iska hor keeno dad oo aan rikoor hadlaya noqdo oo layga dhex hadlo, ilaah wada iga koriyey. waxaan u digayaa ragga isa soo bahaystay waa isog yihiin. waxaan u digayaa xishooda, dadka ka xishooda, ilaahay ka xishooda, ummadda bini aadanka ka xishooda, naga xishooda. waa awoodaa codka igula hadashay inaan bannaanka soo dhigo. hebel iyo heblaayoy awood baan u leeyahay, laakiin igama suurowdo. waxaan ku leeyahay ilaahay ka xishood. markan waa ku cafinayaa, laakiin mar labaadka ku cafin maayo. qof igaga soo talageli karaana ma jiro in aniga la yiraahdo Soomaali isku dir. war sidee lay oran karaa dollar qaado? war dadku ma waalan yihiin? anoo bal heli kara oo si kala ku heli kara oo xalaal ku heli kara oo aan cid layn dhiig. war anigu bari maalinaan dhiman doono alla og. cimriga bini aadanku waa kooban yahay. war qof walba wuxuu adduunka ku raaxaysan karaa oo cimrigiisa 70 60 80 kan ugu badan 80 waa inta badan daaqaday ka baxaan. war muddada aad raaxaysan kartaa oo nolol ku noolaan kartaa waa wax yar. war adduunyadu waa nolol gaaban. siday ku dhici kartaa dadkaagii? war qof Soomaaliya qalbigayga waa qaadan waaye. anigu damiirkaygu waa waxay ila noqotay riyo. qof Soomaaliya oo hebela oo caan ah oo caan dhalaya oo aan garanayo oo isoo wacay oo hebelow oo ileh ma garanaysaa codkaagu walaal meel dheer buu gaarayaa. waa inaad barnaamijka aad ka hadashid xaggaa u leexisaa si reer hebel iyo reer hebel isaga hor yimaadaan. baraha bulshadana barnaamijkaas u kaco, halkaasay ka irmaanaanaysaa dhinacan, adiguna lacagtaada qaado. maxaa kaa galay? war maanaa la iibsan karaa? anigu dal nabadaan joogaa, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. nololla waa ku noola, waana shaqaystaa, inta iga dambaysana dhaqaalo waa u helaa. war waa maxay? ma waxaan u baahanahay anigu dadkayga iyo dhiigga dadkayga inaan gato? siday ku dhici kartaa? Soomaaliya ee baraaruga. hal waxaan oranayaa dadka social media ku jira, waa maqli jiray, laakiin maanta waxaan si dhaba u ogaaday, xaqiiqadeedana taabtay. dadka qabaa'ilada isku dira oo qabiilka 24 hours ka sheekeeya in ay yihiin dad lacag lagu liso oo af dad ku hadlaya lacag lagu shubo. war Soomaaliya iska ilaaliya. war ragga youtuberada ah, kuwa facebooka, war is ilaaliya, war iswaardiyeeya. war lacagtu waa dhamaanaysaa. war qabri 2 mitir ah horan dadka. war goora dhimanaysid ma taqaanid.
war in lagu soo jiro ma taqaanid war adigoo hadlaya naftu kaa bixi kartaa war ilaahay ka baq war dadkaaga u tur war dalkaaga u tur dal shisheeye oo isagu dhisan oo horumar gaaray inuu dalkaaga burburintiisa iyo dadkaaga baabi'intiisa dhiiggiisa oo lacag kugu siiyo oo aad ka fikirtid laba xirmo oo dollar oo lagu dhiibo aad dalkaaga ku burburisid war ka fikir war waa digniin war waxaan u digayaa dadka ka hadla social media war waa idin digayaa war adduunyaynu maanta joognaa war berri waa la dhiman doonaa qiyaamaha la isugu imaan doonaa war ilaahay ka baqa war lacagta daaya aad qaadanaysaan war qabiil idin raaci maayo war waa been war waa awr ku kacsi nin saaxiibkay ah wuxuu igu lahaa dadku siday isugu eg yihiin ha la isugu daro qolaba ha looga dhigo macnaha hadalkaa waxa ninkaa ka keenay qalbigiisa wuxuu arkay inaan hayb la isugu hiilin waxba la isugu hiiline awr ku kacsi ay tahay waa la yaab oo wax lala yaabo war Soomaaliya ay fikiraan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo rag iyo dumar bale sharaf baa leedihiin nacaska naasaha leh oo hiriiryaha leh dawaco calasay dislike-ta ku wadan ku sii wada ku gana saas ugu garaaca isaga iyo wixii xumaan ka shaqeeyaba nin walba oo qabyaalad afkiisa ka maqashaan la dabagala war qof xumi adiga waxba kuma ilaah baan kugu dhaariyay ma qofka maanta bal qof kasta oo qabyaalad ka hadla dib u fiiriya shalay in adeerkiisu ku dhaganaa maanta hadduu dhoolatis military kuu samaynayo oo hebel oo hayb kala ah uu tooshka kuugu ifinayo ilaahay baan kugu dhaariyay bal isaga channelkiisa ceeb ugu filan nin kasta oo qabiil ka hadla meesha uu maqaaxida uu ka hadlayo baa ugu filan ceeb iyo in iyada dib u raac shalay wuxuu haystay mid hayb guud la wadaaga daraatana wuxuu haystay mid isaga xiga intaasaa kuugu filan qof kasta oo channelkiisa gashi waad ka ogaan kartaa qofkani ma qof wanaag ka soo hadli jirayba maanta haddii uu adiga haybtaada sheego annaga oo saasa dollar buu qaatay maaha adiga kaama turjumo waa beentii lacag buu qaatay taanu diidnay buu qaadanayaa diidnay annagu dooni mayno waa diidnay dollarka qaadan mayno diidnay ma rabno dooni mayno ma doonayno ma rabno oo dooni mayno qaadanna mayno dadka iyaga dili mayno caruurtayada iyo hooyooyinka iyo ubadkayagii dhulkoodii baabi'in mayno dhulka iyaga baabi'in mayno ma rabno inaanu qaadanno dollar qaadan mayno anagu diidnay waxaan maqli jiray mudaaharaadada dollar qaate dooni mayno waa yaabi jiray dadkana waxay ka hadlayaan war ilma xayawaan war kuwii xaaraanta ku korayow ma annagaa rabtaan xaaraan inta ku naaxdeen inaad na gadataan nama gadan kartaan wallaahi baydinaan na gadan karayn nama gadan kartaan xaaraan ma cunno mana doonayno namana soo galo dollar aad ka keentay Kenyaan ama aad ka keentay Imaaraad ama aad ka keentay Sacuudi nama soo galo yeeli mayo shaqsi baan ahay isoo geli maayo allahay baa ka allah nabigay baa ka Muhammad alayhi salaatu wasalaam ma rabo hoo diiday anigu waa diiday oo dooni maayo ma rabo risaaqada alla isiyo oo xalaasha ah oo anigu aan shaqaysto taas ay ugu filan khalaas mid kale ma rabo dollar aad meel kale ka soo waaliday oo adigu aad dhexdhexaad u tahay waxba aniga isku deegaan baan nahay isku hayb baan nahay isku bahalkii baan nahay xaqaynu nahay saaxiibaynu ahay waxba ha ila soo marin awooha baan bahalkii ahay habareerta baan dimaashida baan saan waxba ha igu ka kabin yeeli maayo anigu ka aan qaadan mayo wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi dollar aad dadkaaga ku burburi leedahay oo aad rabtid inaad siisid wallaahi bilaahi tallaahi jaamac quraanka iyo bara ilaanan kaa qaadanayn kana rabin mana yeelayo lagamana yaabo qaadanna maayo dooni maayo diiday dadka Soomaaliyeed war dadka Soomaaliyeed oo fakara war ninkaas la soo istaagan
oo mar walba la soo kacaya qabiilka oo kale reer hebel baa loo jeeda inaga la inoo jeeda war isaga dabadiisa fiiriya isaga aragti isugu filan isaga fiidiyowga uu kaga hadlayo hoos uga sii daadig kan uu sheeganayo oo inaga uu ku leeyahay inagii buu isku dirayaa iyagii buu isku dirayaa reerka isagu leeyahay waa ka soo jeeda buu isku dirayaa iyagu saa isugu horinaya madaxa isugu gelinaya waa isdileen hebel saasuu ahaa hebel baasaan ahaa hebel qabiilkuna waa basal saasaa loo qaadaya saasaa loo sii qaadaya ilaa ay walaalihii isku hooyada aan ahayn sheekadu ay gaarto labadii walaalaha ahaa aabbuhooda dhalay isku hooyo ma nihin yaanba hollay naga ridin dhallinyaradu waa kacday waa soo jeensatay aragti waxaan leenahay mida ilaahay waxaan ka baryayaa rag dhallinyaro aan ogahay oo doolarka diiday way jiraan inta kale oo aanan ka warqabin oo dhallinyarada social media ku jirta waxaan dardaaran idin siinayaa dalkiina afkiina ha ku burburinina wallahi ninka la dhaca xabadda iyo adigu isku mid baa tihiin waaba ka daran tahay adigu sababta oo ah waxaa laga yaabaa in hadalkaagu uu cuqdad iyo dagaal geliyo boqolaal qof ama kumanaan qof laakiin mooryaanka xabadda ridaya oo reer hebel qalbiga kaga jirta hal qof buu dilayaa iyo 2 iyo 3 laakiin adigu waxaa laga yaabaa intaas oo kun oo qof oo meelo kala jooga in ay fikirkaaga inta waafaqaan ay dagaal iyo dhibaato sameeyaan oo ummad islaam ah muslimiin ah oo diinta islaamka qaatay oo rumaysan muuminiin ilaahay ah oo dhigoodu xaaraan yahay in ay dilaan sababtana aad adigu lahayd cuqdada adigu gelisay ragga socialka media wax ka buunbuuninaya wiilkii xalay la dilay maxaa lagu dilay dawaco ina calas hadalkeedii baa lagu dilay sabab bay u ahayd waana socotaa kuwa waaqixeen nairobi waa ka carareen soomaaliya u carareen qaybna lamaba hayo jaaniya cirib meel ay dhigaan ilaa iyo haddana waa lagu raad jiraa heer waxaa la marayaa waraamusa in la yidhaahdo dadka waxaa samaynaya oo isku dilaya ummaddana qabyaalad bay sheegaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay warbaraaruga 30 sano baynu waxaynu ku jirnaa reer hebel iyo reer hebel wax guulana kama cid ka gaartay ma jirto ilaa yowmana hada bartii 90kii la joogay iyo kowdii baa maantana la taagan yahay dhagaxa taabashada iyo tuujis way sugu mid tabtaad shalay kaga tagtay buu maantana taagan yahay meeshii laga joogay fidmada baa maantana dad taagan yihiin oo waxay rabaan iyadoo dad badan soo waaya arkeen bay waxay rabaan inay ku takhantakheeyaan waxaase ugu daran isma og aqalkii bay aslaysaa isma og dad Yurub raba inay ku raaxaystaan recordan iska fiidiyowya iska duubaya iyagoo dalkii burburinaya wala maxkamad baa diyaar ah oo insha Allah ta'ala dhawaan idin sugaysa ku bishaaraysta intaasan ku soo gabagabeynaya waxaan idinkaga tagayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.